haddii aad doonayso in aad kordhiso caanaha, aadna doonayso in cunugaagu uu helo caano ku filan xilliga naasnuujintu, waa in aad raacdaa talooyinkan guud. Maadaama aan ka soo hadlay qaybta koowaad 4 talo oo ku saabsan sida loo kordhiyo caanaha, isla qaybtan waxaad ku ogaani doontaa talooyin guud oo ku saabsan sida loo kordhiyo caanaha xilliga naasnuujintu. Talada koowaad waxa weeyaan isnafaqeynta. Haddii aad doonayso in cunugaagu wax aan naas ahayn in aad siiso, ku dadaal in aad isnafaqeyso oo aad gaajada iska ilaaliso. Hooyada nuujiso waa in ay cuntaa cuno isku dheelitiran, waana in ay basataa cuno qudaarta iyo fruitiska leh, waana in ay ka fogaataa calool fadhiga. Talada labaad waxa weeyaan waa in aad ka warqabtaa daawooyinka aad qaadato. Waxaa laga yaabaa cilladda naaso-yarida in ay ka socoto daawooyinka aad qaadato. Sidaa daraaddeed, daawooyinka ugu badan ee caanaha yareeyaan waa kuwa loo qaato xasaasiyadda, sanboorka, neefta, iyo kuwa kaadida badiyaan, iyo daawooyinka uurka looga hortago. Marka fadlan la tasho dhakhtarkaagu in uu ka hubiyo daawooyinka ama kala taliyo. Talada saddexaad waxa weeyaan ka fogow cunooyinka qaarkood, sababtoo ah waxa ayaa jiraan cunooyin qaar ka tirsan oo naasaha caanaha yareeyaan. Waxaana ka mid ah tuunta iyo basasha. Waxa ayaa kaloo jiraan cunooyin kale, laakiin hooyooyinka way fahmi karayaan in cunugooda dhibsanayo dhadhanka caanaha. Sidaas awgeed, waa inay ka fogaataa cunooyinkaas. Talada afraad waxa weeyaan ka fogow stresska, niyad-jabka, iyo isku buuqa, sababtoo ah waxay hoose u dhigaan hormoonka kontaroolo soo daynta caanaha. Waa muhiim hooyada nuujinaysa in iyada iyo ninkeeda ay iskaga kaashadaan howlaha guriga iyo sidii buuqa guriga ka jira loo yareyni lahaa, culeyskana loo wada qaybsani lahaa. Talada shanaad waxa weeyaan ka fogow isticmaalka masaasada. Hooyooyinka ku bilaabo ilmahooda oo yaryar in ay masaasad wax ku siiyaan waa inay ogaadaan in caanaha naaska ay bilaabi doonaan in ay guraan. Run ahaantii, masaasada caafimaadka uma roona